kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada durdurka wararka waxaanu idin soo gudbinaynaa xogta ku saabsan kooxda la wareegtay guud ahaan gobolka Idlib ee wadanka Suuriya isla markaana dhaqdhaqaaq xooggan ka wado aagaasi. intaanu gudagelin xogahaas iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee Suuriya waxaan marka hore ka codsanaynaa haddii ay tahay markii kuugu horeysay soo booqatay in subscribe-ka noo saarto muuqaalkana like aad saarto. ciidamada fallaagada ah ayaa arbacadii bilaabay aynu ka soo gudubnay weerarkii ugu ballaarnaa ee ka dhanka ah dawladda Suuriya muddo markaasi sanada. sabtidii waxay la wareegeen maamulka qayb ballaaran oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka oo ah magaalada Xalab. weerarkan lama filaanka ah ayaa dhaliyay duqeymihii ugu horeeyay ee dhanka cirka ah ee Ruushka uu ku qaaday magaaladaas tan iyo ilaa sanadkii 2016 waxaana la arkayay militariga Suuriya oo ciidamadooda kala baxaya magaalada. weerarka waxaa hogaaminayay kooxda islaamiyiinta ah ee Hayat Tahrir al-Markazi Sham oo loo soo gaabiyo HTS kuwaas oo taariikh dheer ku leh colaadda Suuriya. waa kuma kooxdan Hayat. kooxda Hayat Tahrir al-Sham waxaa markaasi lagu aasaasay magac ka duwan kan oo ah Jabhat al-Nusra sanadkii 2011 iyagoo xiriir toos ah markaasi la lahaa kooxda al-Qaacida. hogaamiyaha kooxda ayaa isku magacowday dawladda markaasi islaamiga ah IS Abu Bakr al-Baghdadi ayaa sidoo kale qayb ka qaatay aasaaskooda. kooxda waxaa loo arkaa mid ka mid ah kooxaha ugu firfircoon uguna halista badan ee ka dhanka ah madaxweyne Bashar al-Assad. laakiin fikirkooda jihaadiga ah ayaa ahaa xooga ugu weyn ee dhaqaajiyay halkii ay markaasi ka ahaan lahaayeen dhaqdhaqaaqa kacaanka. waxaana loo arkayay xilligaas in uu khilaafsan yahay isbaahisiga ugu weyn ee fallaagada ah ee hoostaga dhanka markaasi calanka Suuriyada xorta ah. laakiin sanadkii 2016 hogaamiyaha kooxda Abu Muhammad al-Jawlani ayaa meel fagaara ah ugu markaasi goostay ururka al-Qaacida isagoona isaga baxay jabhadda al-Nusra waxaana aasaasay urur cusub oo magaciisa la yiraahdo Hayat Tahrir al-Sham oo dhowr markaasi urur markaasi la midoobay sanado kadib. dagaalka Suuriya ayaa 4 sano ee la soo dhaafay laga dareemayay in uu markaasi si wax ku ool ah u dhamaaday. xukunka madaxweyne Bashar al-Assad ayaa ah mid markaasi aan lagu murunsanayn magaalooyinka waaweyn ee dalka halka qaybo ka mid ah Suuriya ay markaasi wali ka maqan yihiin gacantiisa. kuwaas waxaa ka mid ah meelaha ay ku badan yihiin Kurdiyiinta ee bariga kuwaas oo wax yar ma ah inta badan ay markaasi ka maqan yihiin gacanta dawladda Suuriya ilaa sanadii hore ee colaadda. waxaa jirtay meelo ay ka sii socdeen inkastoo uu qalalaasuhu u yar hakaday koonfurta dalkaas oo ahayd halkii kacaanka looga soo horjeedo xukunka madaxweyne Assad uu ka bilaabmay sanadkii 2011. in ballaaran oo ka mid ah la dagaalanka markaasi lama dagaanka Suuriya kooxda isku magacowday dawladda islaamiga ah ee IS ayaa markaasi wali halis amni ku ah. dhanka waqooyiga galbeedna gobolka Idlib waxa gacanta ku haya kooxaha jihaadoonka ah. ciidamada ugu badan ee ku sugan Idlib ayaa ah kuwa markaasi weerarka lama firaanka ah ku qaaday magaalada Xalab. muddo dhowr sano ah Idlib waxay ahayd goob dagaal iyadoo ciidamada dawladda Suuriya ay isku dayeen in ay dib ula wareegaan gacan ku haynta laakiin heshiis xabad joojin ah oo sanadkii 2020 oo ay dhexdhexaadinayeen Ruushka oo muddo dheer ahaa xulafada muhiimka ah ee markaasi Assad iyo sidoo kale Turkiga oo markaasi taageeraya fallaagada ayaa markaasi si weyn markaasi u ilaaliyay. ilaa 4 milyan oo qof ayaa halkaas ku nool intooda badan waxa ay markaasi ka barakaceen magaalooyinka ay ciidamada Bashar al-Assad markaasi dib ay uga soo ceshadeen fallaagada kadib dagaal ba'an. Xalab waxay ahayd mid ka mid ah goobaha dhiiga badan uu markaasi ku daatay ee dagaalada ay ka dhaceen waxayna markaasi u taagan tahay mid ka mid ah goobaha guuldarrooyinka waaweyn ay kala kulmeen fallaagada. si uu guul u gaaro Assad waxa uu ku tiirsanaa taageerada hawada ee Ruushka iyo sidoo kale caawinta militariga ee Iran ee dhulka inta badan iyada oo loo marayo markaasi maleeshiyaad ay maalgeliso Iran. kuwaas waxaa ka mid ah ururka Hezbollah in markaasi muddo kooxaha HTS ayaa xarun awoodeed markaasi ka samaystay Idlib halkaas oo ay markaasi ka tahay maamul markaasi rasmi ah oo deegaanka inkastoo dadaalkeeda ku aadan sharcinimada ay weeqday xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha. waxa kale ay ku lug markaasi lahayd dagaalo qaraar oo kooxo kale markaasi ay la galeen.
tan iyo markii ay ka go'day al-qaacida hadafkeedu waxa uu ku koobnaa in la isku dayo in Suuriya laga dhiso xukun islaami ah oo asal ah halkii ay ka ahayd markaasi khaliifad ballaaran sida IS ay isku dayday oo markaasi ay ku guuldareysatay. waxa ka cusub saaka gudaha markaasi gobolka Idlib ayaan sidoo kale markaasi idila wadaagayna. mucaaradka hubeysan ee Suuriya ayaa markaasi sii wada dadaalada xawliga ah kadib markii ay la wareegeen inta badan magaalada Xalab, garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan gobolka Idlib, xilli uu markaasi jiro warar iskhilaafaya oo ku saabsan xaaladda magaalada Hama, iyada oo markaasi lagu bedelayo qorshayaasha degdega ah iyo xogaga mucaaradka waxa markaasi loogu yeero dagaalka ama ay adeegsadeen markaasi joojinta dagaalka gardarrada ah. ayaa ciidamada Suuriya waxa ay faarujiyeen dhowr goobood, halka wasaaradda difaaca ee Suuriya ay sheegtay in hanaanka looga hortagayo iyo qaabka lagu wajahayo ay ku tilmaameen weerar argagixiso. waxa socda ay dhaheen guul ama guul la'aanba waa weerar argagixiso. dhanka siyaasadda marka loo eego wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas waxa markaasi lagu wadaa in uu markaasi booqdo ka hor inta uusan u ambabixin dalka Turkiga si uu ugala hadlo arrimahan. kooxahan ayaa markaasi la rumaysan yahay la wareegay gudaha markaasi ama guud ahaan gobolka Idlib iyo magaalooyin dhowr ah ayaa waxa la rumaysan yahay in gadaal uu ka riixayo Turkiga, maadaama Turkida ay markaasi dagaal ba'an ay kula jirto kooxaha Kurdiyiinta ee ka dhex dagaalama gudaha wadanka Suuriya, halka Iranna ay caqabad u aragto fallaagadan isla markaana ay wax walba ay ku bixinayso sidii markaasi loo joojin lahaa. Bashar al-Assad ayaa mar kale la kulmayo markaasi dhulgariir siyaasadeed kadib markii uu islahaa wadanka guud ahaan gacanta ayaad ku dhigtay, xaaladana waa ay kala degtay, balse waxaa mar kale ku soo ifbaxay urur markaasi awood badan leh isla markaana magaalooyinkii waaweynaa gacanta kaga dhigay. qaybta faallada noogu reeb fikirkaaga ku aadan halka ay ku dambeyn doonto Suuriya iyo sidoo kale waxa uu markaasi arrintan uu kaga dhex bixi karo madaxweynaha wadankaasi muddada dheer soo hayay ee Bashar al-Assad.